السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال دمانتين aad baan idin salaamayaa ku soo dhawaada barnaamijkeena Book Club xalqadiisa koobaad barnaamij aan ugu talagalay dadka aan fahmin ama aan ku hadlin luqadda afka Englishta kaba soo qaad doonay inay buugaag fara badan luqadda ku akhriyaan runtii waagi aan bilaabay wax akhriska ama inaan wax akhriyo waxay ahayd dabayaaqadii sanadii 2016 waagaas oo aan dugsigii ku biiray aan ka soo bartay runtii luqadda Englishta iyo waxa soo dhan marka waxa jiray buugaag fara badan oo aan runtii aan akhriyay muddada laga joogay imka 7 sano barnaamijkan waxaan kula wadaagi doonaa buugaagta runtii aadka ii anfacay anigoo isku dayay bal inaan mucda ama ubucda buuga intaan soo khulaaseeyo aan barnaamij shir ama muuqaal yar oo kooban aan idin kula wadaago si aanad iskuba khasbin inaad buugga maarta akhrida maanta oo dhan oo buugda 280 page ka koobnaa aad adigu muuqaal 15 minute ama 10 minute lagu soo koobay aad adigu ku dhageysato insha Allah buugga maanta xalqadan miiska inoo saaran ee aynu doonayno inaynu isla wada eegno key insights ka ama ubucdan aynu ka soo gurano waxa weeyaan buugga runtii dad fara badan oo de Soomaaliya iyo dadka kale aad ka yaqaanaan qof kasta oo wax akhriyana runtii uu garanayo buugga Atomic Habits ama caadooyinka ilma qabatayga marka insha Allah buuggaaseen maanta isla meel dhigi doonaa bal hadaanad akhriyin iyo hadaad akhridayba hadii aad akhridayna bal waxaad ila eegaysaa inaad fahantay buugga soo akhriday oo waxyaabahan aan ku sheegayo aad ka dhex aragtay hadii aanad akhriyinna de chance baa ku tahay waxa weeyaan buuggi waad fahmaysaa oo runtii ubucday iyo adigoo aan akhriyinba insights waad kala baxaysaa insha Allah marka waxyaabahan doonay marka hore inaan ka hadlo waxa weeyaan buuggani horta muxuu ka hadlayaa buuggani wuxuu ka hadlayaa waa Atomic Habits waa habits buu ka hadlayaa ama dhaqamada ama habdhaqanka qofku uu leeyahay marka sida uu shaqeeyaan sida aynu caadooyin wanaagsan u yeelan karayno caadooyinka xun sida inoo saameeyaan waxa soo dhan xitaa buuggan runtii markaad imika muuqaalkan daawato waxaad kala tagi doontaa adigoo fahansan habka ay caadooyinku u sameysmaan ama ay u shaqeeyaanba insha Allah marka aynu guda galno section koobaad ee buugani wuxuu ka hadlayaa sida caadooyinka yaryar ee aynu maalin walba qabanno aynu ku soo celcelino ay runtii nolosheena saameyn weyn ay ugu leeyihiin kaba soo qaadba maalin walba waxaad cuntaa xabad muusa maalinta inaad khudaar cunto wax weyn kula maaha laba casho wax weyn kula maaha saddex casho markaad marayso wax weyn kula maaha waxba arkimaysid laakiin sanad hadaad sidaa ku wado runtii caafimaadkaagu isbedelayaa marka wuxuu ka hadlayaa buugani waxyaabaha yaryar ee aynu qabanno siday nolosheena weyn u go'aamin karayaan oo hadaad tiraahdo war anigu niyow maalin walba waxa iska soo kacaya 10ka subaxnimo 10ka subaxnimo soo kacaya hurdada ka kacaya laba maalmood saddex casho week hadaad soo kacdo wax saameyn kugu yeelmayso oo de qofkaaga u baataan laakiin sanad hadaad wado runtii waxaad noqonaysaa qof lazy oo aan maarta aan 10ka mooyaan xilli kaleba soo kici kareen marka wuxuu ka hadlayaa caadooyinka yaryar runtii sida nolosheena ay ugu leeyihiin saameynta aadka u weyn leh kaba soo qaadba waxaad doonaysaa inaad ka duusho gagida Cigaal International Airport aadna aado magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia kadib istiyaarin fara badan kadib waxaad go'aansatay inaad diyaaradda raacdo diyaaradda baad dhex gashay diyaaradda markaad dhex gashay diyaaradda hore uma raacin kadib tan window seat baad dooratay ama kursiga daaqadda leh si aad u daawato daruuraha iyo diyaaraddu say u kacaysay iyo qoftii markii ugu horeysay diyaarad raacaya baatay kadib dabeetana adigoo jawigiis kaga jiro daruurihii iska daawanaya unba pilotkii ama nimankii waday diyaaraddu ayaa diyaaraddii waxay u leexiyeen 3.5 degree adigu waxba ma dareemin qof kalena waxba ma dareemin dadkii oo dhan waxay jawi wacan bay iskaga jiraan diyaaraddu wax gariira may samaynin halkii loo baahnaa inay diyaaraddu tagto miyay tagaysaa su'aashaas waxaan doonayaa halka comments-ka aad kaga soo jawaabtaan diyaaraddu Addis Ababa ku socotay Ethiopia 3.5 degree buu pilotku uu diyaaradda leexiyay diyaaraddu Addis Ababa ma tagaysaa mise ma tagayso waxaan rajaynayaa inaad qodba maskaxdaada imka ku hayso jawaabtu waxa weeyaan ma tagayso waayo 3.5 degree ba diyaaraddii leexisay mana ahayn in la leexiyo marka waxaad tagaysaa magaalo kale marka waxay runtii tanina tusinaysaa in caadooyinkeena yaryari ay yihiin baylodada inagu wada nolosheena kale oo hadad caado yar maanta oo wanaagsan aad develop garayso oo aad tiraahdo in caadadaasaan maalin walba qabanaya runtii waxaan hubaa in noloshaadu ay isbedelayso oo noloshaadu ay runtii muhiimad aad u weyn yeelanayso sida diyaaradda kacday 3.5 degree la wareejiyay halka Addis Ababa ka degi lahayd magaalo kale ka degtayba oo Ethiopia ku dhex taala adigoo doonaya magaaladii weynayd jawigeedii inaad aragto magaalo yar oo miyiga laga dejiyo reerayo aad raacatay iyo waxa aad aragtay marka runtii caadooyinkeenu aad bay noo saameeyaan
sectionka labaad ee buuggu ka hadlaya waxa weeyaan sida caadooyinka yani waxa laga yaabaa inaad caadadan aad dhisayso ama habdhaqanka aad maanta doonayso inaad go'aansato inaanad resultkiisa ama faa'iidadiisa inaanad waqti dheer arag kaba soo qaadba maanta haddaad tiraahdo waxaa maalin walba soo kacaya 5 subaxnimo dee week markaad 5 subaxnimo maalin walba soo kacdo arki maysid wax result ah ama natiijo arki maysid laakiin haddaad wado oo ilaa sanad 2 bilood aad meelaha gaarsiiso runtii natiijadu aad bay u wacnaanaysaa waana waxyaabaha runtii dib inoo dhiga waayo haddaynu maanta inagu bilaadan nahay waxaan doonaynaa inaynu markiiba natiijada helo aynu markiiba natiijada runtii aynu markiiba instant gratification aynu markiiba helo aynu la socono markiiba natiijada kaba soo qaadbay waa maxay natiijada muuqaalka inaan duubaya waxa weeyaan inaan YouTube geliyo kadib markaan dhameeyay YouTube geliyo waxa weeyaan waa result ka aan helayo ama faa'iidada aan helayo marka waxa weeyaan inagu haddaynu bilaadan nahay waxaan doonaynaa inaynu markiiba aragno natiijo kaba soo qaadba waxa weeyaan imika kabahaagu inaad xidhato waa caado weligaa ma aragtay adigoo leh kabahaygii baan soo ilaawayo suuq adigoo iska maraya cagcad ma tiri in kabahaygii baan soo ilaawo jawaabtu waa maya waayo markiiba natiijada arkaysa oo natiijadu waa maxay de inay qodaxda iyo bacadka iyo waxaas oo dhan ka celiso oo aan de kaba la'aan ku socon karayn marka haddaynu bilaadan nahay bugan wuxuu ka hadlayaa in natiijooyinku runtii ay aad inoogu wacan yihiin أنا سلقنا سكشن كاستحاد البوجا يعني عادوين كسيدي وسميسمان runtii kaba soo qaad imika waxaad imagine garaysaa ama aad xasuusataa adigoo muuqaal kan daawanayo xaafadda dhex fadhiyaba waxaad xasuusataa intaad qol madow gasho adigoo qol madow galay qolka madow markaad markiiba gasho maskaxdaadu markii waxay ku wanaysaa waniyo leer baad u baahanta kadib haddana waxay wanaysaa bahalka shido switchka shido haddana waxay wanaysaa actionkii waa kaasay samee actionkii waa samaysaa dhac waa daaraysaa leerkii baa kuu baxaya reward waxa weeyaan natiijadu waa inaad wax aragto marka markiiba maskaxdeenu waxay diraysaa pulses oo oranaya waxaas aad u baahan tahay kadib dadna caadid baa markiiba meeshii soo gelaysa aan idin la wadaago sheeko yar oo neuropsychologist uu qoray ama qiso yar uu sameeyay oo la oran jiray Edward Thorndike wuxuu ahaa psychologist noolaa qarnigii 19aad kadib dabeetana wuxuu yidhi wabal aan ogaado yani habitska ama caadooyinka ama habdhaqanka qofka maxaa sameeya kadib dabeetana bisaduu soo ururiyay bisadii markuu soo ururiyay wuxuu ku riday box ama wuxuu ku riday kartoon yar kadib dabeetana kartoonkii buu afka kaga xidhay kartoonka markaa wuxuu u sameeyay badhad yar oo haddii ay bisadu taabato uu albaabku isfuraya ka soo bixi karaya maalintii koobaad buu ku riday markuu ku riday wad garanaysaa bisad lagu riday dee boqos yar gebigeeduba waxay isdhaheen dee waa jeexjeexa meesha wixii baa saas isugu qaado midha hal saac bay qaadatay inay badhankii uun dee yani cagta la helaan iyagoo aan ogeynba dee markii meesha yacyaacayninba badhankii ba cagta taabteeno way ka soo boodboodeen kadib maalintii labaad buu ku celiyey maalintii labaad ba haddana meeshii haddana wixii shalay ka dhacayba ayaa ka dhacay haddana bisadii meeshu way isku waadeenoo kadib dadna badhankii bay lugta mid kaga dhacday dadna way soo boodeen maalintii saddexaad maxaa dhacay maalintii saddexaad waxaa dhacay inay bisadihii dhammaantood ay meeshii badhanka ku yaacaan oo dadna ay taabtaan oo ka soo boodboodaan maalintii afraad sidiisii leeg marka ninkan wuxuu leeyahay caadooyinka ina siinaya resultka wanaagsan yacni maxay doonayeen bisadahaasi waa freedom inay xorriyadooda helaan marka caadooyinkana siinaya natiijooyinka wanaagsan ayay bini'aadanku ku soo celceliyaan ama xayawaanku ku soo celceliyaan oo aynu inta badan samaynaa waad gaajoonaysaa maxaad u ilaaweydaa inaad cunto waxaad u ilaaweydaa waxa weeyaan dee maanta oo dhan dee gaajo kuma socon karaysid waayo waxaad u baahan tahay inaad wax cunto oo maarata calooshaadu dee ku buuxsanto aad energy dareento marka waa waxa weeyaan waa result wanaagsan weeyaan haddaba aynu isla yar eegno bal qaabka ama habka ay caadooyinku u samaysmaan caadooyinku waxay u samaysmaan 4 qaab 4 process bay maraan 4taa process la'aantoodna ma shaqayn karayaan kaba soo qaad baynu ku noqono tusaalaheennii ahaa adigoo qol madow soo galay qolka madow markaad soo gasho maskaxdaadu waxay kugu soo ridaysaa inaad u baahan tahay light waxa weeyaan waa Q baa la dhahaa afka luqadda Englishta waa inaad u baahan tahay light yacni maskaxdaad markay waxay markaad qolka madow soo gasho maskaxdaada adigoona hadlin ayaa waxay oranaysaa leer baad u baahan tahay sidana stage-ka labaad baad u gudbaysaa maskaxdaada haddana markii waxa ku soo dhacaysa inaad leer ka shito maskaxdaada markii waxay oranaysaa waa inaad leer ka shitaa waa craving waa inaad leer ka shita markiiba waxa weeyaan marka hore stage-ka koowaad muxuu ahaa maskaxdaada waxay kugu soo ridaysaa inaad u baahan tahay leer yacni waa need inaad u baahan tahay stage-ka labaad maxay oranaysaa waa inaad leer ka shito command ama instruction bay ku siinaysaa kadib dadana stage saddexaad baad u gudbaysaa waxa inaad ficilkii samayso oo aad leerkii shido kadib dadana de adiga saarka adigoo
switchkii kusii socdo oo gacantii la doonanaya oo aad doonaya inaad leer ka shito kadibna stagekii afraad baad u gudbaysaa oo ah inaad resultkii ama natiijadeeda hesho oo natiijadu waa maxay imika waa inaad waxa weeyaan wax aragto marka afarta process ama afarta hab ay runtii caadooyinku u samaysmaan haddaba afartan hab inagoo isticmaalayna siban caadooyinkeena xun uga takhalusi karayna caadooyin wanaagsanna meesha u soo gelin karayna marka waa su'aal runtii aad u muhiim ah qaabka koobaad ee afartan process aad u isticmaali karayso si aad caado xun uga takhalusto ama caado wanaagsan aad meesha u soo gashato waxa weeyaan waxa la dhaho waa friction macnaheedu ma aha hadda kii science-ka ku soo dhigatay ahaa laga soo dhiganayay physics-ka kama aha kani waa kii psychology-ga marka waxaad u baahan tahay friction yacni haddaan maanta dhigo kamaradayda haddaan halkaa soo dhigo oo aan aniguna kaba soo qabta dugsigii joogaan wax dhiganayo inay maskaxdayda ku soo dhaco inaan muuqaal duubaa aad bay u fududa laakiin haddii kamaradaydu iga maqantay qof saaxiibkayga haysto dee kuma soo dhici maysaba waa wax iska dhigaan odhanaya marka frictionku waxa weeyaan inaad kaba soo qaadba waxaad doonaysaa inaad caado readina samaysato inaad wax akhrisato qof runtii wax akhriska ku wanaagsan inaad noqoto doonaysaa halkii aad buuggaaga dhigi lahayd saaxiibka ama u dhiibi lahayd ama aad shantada dhigi lahayd miiskaaga yar qolka yaalla buugga dhigu kadib adigu ma arkay adigoo kusii socda waayo maxay samaynaysaa in maskaxdaada ay ku soo dhacdo inaad wax akhris u baahan tahay baa fududaanaysa oo waayo wixii waad arkaysaa oo waxa weeyaan markuu wixii ku hor yaalo iyo markuu kaa maqan yahay runtii aad bay u kala duwan yihiin sidoo kale caadada xuntana waad u isticmaali karaysaa oo opposite baad ka dhigi karaysaa low friction baad ka dhigaysaa kaba soo qaadba waxaad doonaysaa inaad iska jarto caadada mobilka inaad inta badan aad u isticmaasho ama habeenkii isticmaasho dee mobilkaaga qolka kale kaga kaalayba yacni mobilkaaga meel kaa fog dhig marka caadadii wanaagsanayd waad soo dhaweynaysaa buuggii miiskaad dul saaranaysaa qolkaaga yaala caadadii xumayd sida mobilkii oo kale qolka kale aad ka geenaysaa ama meel dee kasii dheer baad geyin karaysaa si aad araggiisa iskaga xidho oo aanay maskaxdaada ugu soo dhicin inaad u baahantahay inaad mobilka isticmaasho qodobka labaad ee la doonayo runtii inaad aad kuga fikirto haddii aad doonayso inaad caado wanaagsan dhisto waxa weeyaan inaad samayso implementation intention waxa la dhaho oo buugga atomic habitsna runtii uu focuska aad u saarayo implementation intention macnaheedu waxa weeyaan ha odhanin buug baan akhrin doonaa ama buugga waan akhrinayaa waxaad tidhaahdaa buugga waxaan akhrinayaa maalinta sabtida iyo isniinta labada cashan akhrinaya runtii aad bay kugu fududaanaysaa inaad clarification la timaado oo aad wixii specific ka dhigto marka waa inaad waxaaga aad intention waa inaad u samayso aad clarification ka dhigto qodobka afraad ee aynu doonayno in maanta ka hadalno si aad caado wanaagsan u dhisato waxa weeyaan wax la dhaho temptation bundling runtii buuguna aad buu uga hadlayaa waxa weeyaan inaad caado wanaagsan oo aad doonaysa inaad horumariso oo aad runtii noloshaada kusoo kordhiso iyo caado aad jeceshahay aad isku xidho caadada wanaagsan runtii imika inaynu exercise samayno dee ma jeclin inaad Netflix daawato dee waan wada jeclay soo maa marka labadaa isku xidh nin yaroo Australiana oo ku noolaa magaalada Sydney oo ahaa arday jaamacadeed ayaa wuxuu samayn jiray wuxuu jeclaa inuu Netflix ka daawado oo maanta oo dhan guriga iska dhex fadhiyo chips iyo xawalba soo qaato kadibna uu Netflix-ka uu saasunu daawado kadib deetana waxaa dhacday wuxuu ogaaday inuu niyo runtii aad u baahan yahay inuu jimicsi sameeyo waliba inuu mooto qaato bicycle-kiisa yar uu jimicsi ku sameeyo kadib ninkii wuxuu sameeyay wuxuu temptation bundling sida baan samayn karaa sibaan labada caado aan isugu xidhi karaa oo aan walaalo uga dhigi karaa si aan labadaba u helo kadib wuxuu yidhi Netflix guriga waan kaba saarayaaba Netflix wuxuu sameeyay shaashad yar buu bicycle-kii ku dul rakibtay wuxuu yidhi markaan exercise garaynaya ama bicycle la socdo maan daawan karaa Netflix-ka kadib wuxuu sameeyay Netflix ku daawanaya at the same time exercise uu sameynaya oo jimicsanaya kadib temptation bundling runtii aad bay muhiim u tahay qisada qodana ma aha waxay afar badan baad samayn karaysaa oo imka dad reading kaba soo qaad baad aad doonaysaa inaad develop garayso laakiin aanad jeclayn dee waxaad samaysaa baad kafeega jeceshahay for example me kafeega waxaa oranaysaa maalin kasta oo aan aado kafee aan aado wanaan xabad buuga soo akhriyaa kaba soo qaadba subaxii baad kacday wanaad kafeega aad cabayso wanaad buug akhrido oo aad buuga bilowdo ma fahanti marka temptation bundling saasaa loo samayn karaya qodobka ugu dambeeyay aan buuga runtii kusoo gabagabaynaynana waxa weeyaan waxa la dhaho habit contract macnaheedu waxa weeyaan inaad asxaabtaada u sheegto inaad caado xun ka takhalusayso kaba soo qaadba haddaad xaasla tahay lisingan baa lanahay waxa la doonayaa inaad samayso inaad xaaskaaga u sheegto aad tiraahdo kaba soo qaadba nin qaadka cunaa tahay oo balwad leh waxaad doonaysaa inaad balwad iska dayso ama qaadka iska dayso wadaad xaaskaaga u sheegto tiraahdo balwadii qaadkan iska daynaya qaad dambe haddaad igu aragto ama aad igu uriso
$50 baa miiska kuu dhigaya kadib dabeetana maalintii koowaad baad wasxijin weydo week markaad joogtay baad maalintii daba tiri waa niyo $50 waan haynaa abe naga bayda waad soo cunta waa kale dumarku way taxaan markii way ku fahanto way de waa lagu qabtaa adigu dhigtaadu soo qabtayo guriga markaad timaad waad qaadka ka soo waraa sigaarka adigu wixii ama waa lagu fahmi $50 baad miiska dhigtay wallahi maalinta dabaan waxaan hubaynaa inaan warkaale $50 maalin mushahar bay tunu mushaharkeeda si naga wada hagee $50 maalin bana ugu qorto lacagta inaad samayso inaad isku xidhan lacagta iyo caadada wanaagsan runtii aad bay effective u tahay oo wuxuu buugu ka hadlayna habit contract baa la dhahaa inaad samayso inaad saaxiibada u sheegto taano caadada xuma iska diinay dad caadada maanta bigo aragtaana maalin walba niyo cafeteria geynaya marka 10 saaxiibada ay cafeteria geyso mid walba dhaho walaal maxaan ku leeyahay walaal chicken soo qabo adaa dan u deynayo oo oranayo niyo maxaa khaldantay marka 10 nin ay file ku soo galaan dhahan walaal chicken keende waa chicken walaal ma gadaysan armaha ma ada badda ka bixi waayay marka runtii habit contract aad buu muhiim u yahay buuguna waxa weeyaan ubuucdiisuba waa inta weeyaan iyo wuxuu ku hadlayaa marka insha Allah barnaamijkeena book club runtii waa barnaamij kanaalkeena ku cusub وانا برنامج runtii labadii usbuucba hal mar aan halkan ka soo deyn doono insha Allah biidhnillaahi alkariim anoo ku eegaya bugaag fara badan oo runtii aad maskaxdaada iyo garaadkaaga ku kordhin karayso intaan muuqaal la mid isugu iman doona asxaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته